maalinta aan kooxda ku biiray ayay igu dambeysay faqrinimo ama lacag la'aan. sidoo kale maalintan kooxda ku biiray ayay farxad igu dambeysay sababtoo ah maalin walba risk ayaan galnaa, maalin walba khaladaad ayaan galnaa. waxaa jiro inta dowladda la gaarin ama xabsi la gaarin annaga dhexdeena aan isku dhacno oo maalin walba dad la dilo, maalin walba naf la gooyo, maalin walba qof la dhaawaco. waxaa jiro kooxo kala duwan ayaa dhisan, kooxahan ayaa isku dhaco. xuduudkeenna ma gudbi kartiin, macnaha dharka aan qabno ma xiran kartiin, shaqadeenna aan ka shaqaysanayno ma gali kartiin. arrimo noocaasi ayaa maalin walba la isku qabsadaa. waxyaalo kale oo la isku dagaalaa dumarka, gabdhaha aan la soconno ma la socon kartiin, gabdhaha xaafadahaas degan ma la hadli kartiin. mid ka mid ah kooxda ay ka soo horjeedaan hadduu shukaansado gabar degan xaafadda ay kooxda maamulaan ama ay ka tirsan yihiin, duulaan ayaa la isu qaadayaa. maalin walba arrimo noocaasi ayaa dhaco. sidaa darteed subax kasta markaan soo kaco riski ayaan ku soo kacaa, anigoo islahayn adigoo nool ayaad soo hoyanaysaa ayaan xaafadda u soo hoydaa. waxaa jiro maalmo qaar oo aan saaxiibaday israacno oo aan kaligay soo noqdo, saaxiibadayna la dilo, qaarkoodna xabsi la dhigo. waan ogahay, waana dareemi karaa maalin maalmo ka mid ah inay igu dhici doonto waxa maalin walba ku dhacayo saaxiibaday oo aan markhaati ka ahaa. inkastoo aan sheegi karin maalintaas ayay kugu dhacaysaa, waan dareemi karaa ama waan ogahay inay igu dhici doonto inkastoo aan ogeyn xilliga ay dhacayso iyo maalinta ay dhacayso. waxyaalaha saaxiibaday ku dhaca dilka iyo xabsiga saaxiibaday la kulmaan. hase ahaatee meelaan ka soo laabto ma joogi, inaan u sii socdo ilaa aan ka dhimanayo inaan u sii socdo maahane inaan wax yar ka gaabiyo xataa ma awoodi karo, sababtoo ah labada dhinacba riski ayaan ku jiraa. haddii aan shaqadayda ka gaabiyo kooxda ayaa i dilayso, haddii aan shaqada si hufan u wato oo sida ayaka rabeen aan u wato ama waa la i xirayaa ama waa la i dilayaa. laba jeerba riski ayaan ku jiraa. qof bani aadana laba ma wada helo. wiilkani walaalkeen dhibaatooyinka uu ku jiro lacag u haystaa, waxaa soo gasho lacag haddhaaf ah, laakiin wuxuusan haysanin faraxdi. daawade adiga faraxdi iyo lacag tee dooran lahayd? kama hadlayno lacagta wiilkan soo gasho oo riski ku soo gasho oo halista ah, kama hadlayno lacagta caadiga ah oo xalaasha hadduu ilaahay kuu qadaro ama lagu siiyo lacag xalaal ah. faraxdi iyo lacag haddii la isbarbar dhigo midee qaadan lahayd? ogaaw, haddii aad faraxdi qaadatid lacag ma helaysid, haddaad lacag qaadatidna faraxdi ma helaysid. midee qaadan lahayd waa su'aal. qisada haddii aan ku sii soconno, dhibaatooyinka way bateen. saaxiibaday aan kooxda la galay intooda badan way dhammaadeen, inta kalena xabsi ayay galeen. anigii maalin walba dad cusub oo lasoo tababaray sida waagii aan kooxda soo gali jiray, dad sidaasi soo galayo ayaa la kulmaya. maadaama kii soo galaba ama la xirayo ama la dilaayo, booska kii dhintay ama kii la xiray mar walba waxaa lagu soo buuxinaa mid hooyadii soo habaartay. hooyaday waxay ahaan jirtay qof aad iyo aad ugu kalsoon, hadal kasta ay tiraahdo waan qaadan jiray. sidaa darteed way igu kalsoon tahay. waxay odhan jirtay hooyaday, waa Jamaal keliya, ilmaha aan dhalay Jamaal keliya ay maqlo. 6 ilmood ay dhashay, aniga ayay igu tilmaami jirtay qof hadalkeeda qaato. kalsoonidaas ayay hooyaday igu lahayd. xaaladdu markay xumaatay oo arrimahayga bannaanka u soo baxeen oo aan magaalada caan ka noqday, ayay hooyaday ila hadashay iyadoo ilmeynayso. waxay igu tiri, Jamaalow, waan xasuustaa waa maalin axad ah, salaad casar kadib, qorraxda hadda sii dhacayso ayay ahayd xilligaas. hooyaday ayaa ila soo fariisatay, anigoo TV fiirsanayo ayay isu ag fariisatay. waan shakiyey inay ila hadli rabto, waan dareemay. TV-ga ayaan joojiyey. way isu ag fariisatay, muddo maysan hadlin. ugu yaraan 20 sakan way aamusneed, maysan hadlin. TV-gana wuu dansan yahay. kadib hooyaday ayada oo ilmeynayso ayay ila hadashay. waxay tiri, Jamaal, hooyo. labadaas eri ayay tiri, haddana way aamustay. warkawan ka maqsuudila murugadan qabee hooyoy macaan uqaagu iga maydhila dhibtan soo maree hooyoy macaan intan kaamana waan maagano mafaaciyo hurda
واسكمانا هوي معاه maaragtida waxay ila mid tahay anigoo makiyo madiinaba tago xaski Soomaaliye iyo maganila markastaba haw maamoy dhiba ila soo marteen isna xaqa ama magi kare minika jannada mawlaha ka dhigo maamoy macaan raalliga ahaad anigii qiirooday qisada ma ka hadli kari wallaahi aad iyo aad bay ugu adag tahay kadib hooyaday waxay tiri Jamaal hooyo waxaan rabaa inaad ii sheegtid wax walba oo jira oo noloshaada ku saabsan inaad ii sheegtaan rabaa hooyaday way ka dherigsan tahay arrimahayga inkastoo ay maalin walba markaan guriga imaado oo i weydiiso anigana aan inkiro waxa la qariyo ma aan sheekadayda banaanka ayay u soo baxday magaalada cid aan iga garanaynin ma jirto si fiican ayaa la ii yaqaanaa arrimahan ku jirana si fiican ayaa loo yaqaanaa anigana hadda ma joogi meesha aan wax ka qarin lahaa waan ogahay hooyaday inay wax walba la socoto dhinaca kale saan u sheegi lahaa ama waxaan u sheegi lahaa ayaan garan waaye ma ku dhihi kari hooyaday waxaan ahaa drug dealer waxaan ahaa tuug waxaan ku jiraa kooxdaas waxaan haystaa qorigaas waxaan dilaa maalin walba qof bani aadan ah waxaan dhaawacaa qof bani aadan ah hooyaday kuma dhihi kari way ugu adag tahay laakiin hooyaday way og tahay arrimahaas inaan sameeyo way la socotaa awoodda ay iga gooso unbaysan meesha ku haynin laakiin arrimaha way la socotaa waxay rabtaa keliya inay afkayga ka maqasho xaaladdu way adkaatay hooyaday ilmo ayaa ka qubanayso anigii waxaan ku qancin lahaa gacanta kuma haayo ama waxaan u sheegi lahaa oo aan hooyaday ku qancin lahaa ma jiraan uqaagu iga maydhila dhibtan soo maree hooyoy macaan intan kaamana waan maagano mafaciyo hudab wiska maanacee hooyoy macaan maaragtida waxay ila mid tahay anigoo makiyo madiinaba tago xaski Soomaaliye